بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان ودبسيجا وسيد حسن الفرقان في أرض من البار قبل كاجدو ساكا يهات صباح 4 تاريخنا يكون بأجنات 18 أكتوبر 2024 يلا وحا حفلة لغو ماموسي 18 أكتوبر لغو قبطي دبسيجا حفلتنا ويسوق من قابيا أرضي دا دبسيجا أيا وحا يكسو كل جديدين أرضي كل دوان gabayo heeso iyo taariikh ku saabsan calanka Soomaaliyeed maadaama ay tahay maalinta calanka Soomaaliyeed loona baahan yahay in is xasuusiyo habkii loo soo hindisay iyo waliba qaabkii loo soo nashqeeyay. Tani ma ahan munaasabad noocan ah midii ugu horeysay ee lagu dhigay dugsiga Al-Furqaan. waxaa sidoo kale jirto la weydiinay su'aalo badan su'aalahaas ay kamid yihiin maxaad ku xulatay calankan buluuga ah iyo su'aalo kale badan. waxa la weydiiyay su'aalo ay kamid yihiin maxaa ku dooratay calankan buluuga ah wuxuuna ku jawaabay waxa uu sharxay sababta uu doortay ama uu xushay calanka buluuga ah. waxaanu yiri midabka buluuga waxaan u xushay ama aan ku xushmeeyay waxa uu eegay cirka xidigta cadaankana waxaan ku xushay ama aan u xushmeeyay waxa weeyaan shanta qaybood oo noo qabiyay gumeystii ama isticmaalkii ee reer Yurub iyo Itoobiya. calankan ayaa waxa markii ugu horeysay laga taagay magaalada Hargeysa oo xilliga ahayd caasimadda labaad ee dalka. محمد عوالي ليبان الله ونحرسته وحوها روح يكون تاي سومالي نمدا إسلام مركانا قيمة ولا نمدا أمد الصوماليات إسكو إسر أف إياه دين بقى ينقن حال جندير كدب وحي أمد الصوماليات كقولي ستي أنا صورة شيء إن يعني تعلم قروح بدن أو شرف له كاسو كترجمة يجردناك أمد الصوماليات أهنا إن له صومالي مديسن calanka qaranka Soomaaliyeed oo maanta jirsaday 68 sano ayaa wuxuu ku yimid halgan adag oo loo soo galay halgankaasi oo ay hoggaanka u hayeen dhalinyaradii xisbigii SYL kuwaas oo halgan qarar la galay gumeystii soo bahaystay baabi'inta jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. calanka waxa naqshadiisa la keenay 1952 balse waxa la ansixiyay 1954 isla sanadkaasi 12 Oktoobar 1954 ayaa waxa la arkay isagoo suran fida guferno oo u dhaxaysa calankii qaramada midoobay iyo kii Talyaaniga. balse waxa la ansixiyay 1954 isla sanadkaas 12 Oktoobar 1954 ayaa waxa la arkay isagoo suran fida guferno u dhaxaysa calankii qaramada midoobay iyo kii Talyaaniga balse ka gaaban. 26 Juun 1956 ayaa waxa la simay kii Talyaaniga iyo kii qaramada midoobay. 26 Juun 1960 ayaa waxa la suray beerta xorriyadda Hargeysa isagoo kaligiisa waana markii la yiri kan nasiib kan nasaar. ugu dambeyntii 1 Luulyo ayaa mar kale la suray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya abwaan Maxamed Cawaale oo ahaa abwaani Soomaaliyeed ayaa wuxuu yiri hadaladiisa waxa kamid ahaa qof guumeysi dhibkiisa arkay ayaa xarrimo ka raadsaday baa garan kara waxa ay tahay qiimada ay leedahay gobonimada iyo daljaceylka. gabagabadii waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in looga baahan yahay in ay ogaadaan ayna ku daydaan doorkii wax ku oolka ahaa ee dhalinyaradii Soomaaliyeed ka soo qayb qaadatay xarrimadaanka Soomaaliya waqtiga ay awgiis intaas ayaan ku soo gabagabeynaa calanka Soomaaliya ka sheekeyntiisa iyo taariikhdiisa meesha kuma soo koobi karno. xukuumaad tahay ciirsigaagu waa kee cudud aad ku faantiyo colka taagla dirir iyo miyaad ciidan leedahay bulsho aad ku culus tahay miyay kuu caweeyaan macirkaad u hoyataa dhulka cirif ma leedahay cawaqaba miyaa tahay mise ceel durshaa tahay cilmi aayalayo labadaa midkee tahay calan iyo xukuumaad tahay cakudaadu badato ciilkaagu badan yahay calan iyo xukuumaad tahay magacaygu waa caan cilmigan ku tiirsanahay anoo caada marayo waxaan ahay cawaalaha cirka loogu magac daray waagaan cusboonaa cizi iyo karaamiyo carfi baan ahaan jiray carsigaan ha yeeshee cidi ima daryeeshee waxaan qabaa ciil
colaad iyo waxba yaan cataabine cashadaydii baa iman maandeeq baa irmaanaan caraftaydii baa curan nabad lagu baraariyo barwaaqaa inoo iman waxaa soo rogaal celin maalmihii cudoonaa cagta kii ijeediyey curyaanshay waa hore hadduu ii ciyaartumi kuwa maanta caasiye igu sheegay curyaannimo barray ii cayaartumi maandeeq baa irmaanaan sumadaydu waa caan soohdintaydu waa caan waxaan ahay cawaalaha cirka loogu magac daray wakhtigii gumaysiga gaalada caddaanka ah geygeenna joogtee ee gees ilaa gees gabaldhaca jabuuti iyo gaaris iyo kenya gobollada galbeed iyo gebigiis waqooyiga kii gibil caddaan iyo gaalkii amxaarkiiyo intay gacal wadaageen gooni iiga haysteen soomaalida isgarabtaal gedigeed walaal iyo gacan qudha ahaayeen gobol weliba gaarkiisa gobonnimo udirirkii go'aan lagu midoobiyo guddoon dhacay ayuu ahaa in la isgarabsadaayo gurmad laysa siiyaa geesigii bashiiroo gurmadkii toogdheer ilaa gaadhay beri sare waa tii gaalka sayntala lagu galay hargeysiyo gobolkaa sanaag iyo gebigiis waqooyiga waa tii ay gooyeen gaaladu ku laayeen gobolkii ku caanbaxay gaaladiidka weligiis ilaa guudka sare iyo goobihii talaax iyo gedigiiba reer sool ilaa gaalkacyo idilgarow iyo nugaal iyo goob kastuu dalkeenna ah anigu gaar saraa nahay calan buluuga baa nahay astaan gobonnimaa nahay gaashaan xidigiyo waxaa nahay shangeesley calaamadaha geyga jira marka layga garab suro midka gooniyaa nahay geeska afrikaa nahay somaalaanu ahay gaar kuma imaan gebliya dheel xilligii gumaystuhu godwareerka igu waday isticmaar shan gobol iyo goobooyin iga dhigay raggii ii guntaday iyo gaashaanka warafka iyo golxafka iyo tuuryada igu dhiciyo gudimada gabdhihii garayska iyo gambada iyo guntiinada dhagahoodii ii gaday waxay galeen god aaqiro in yaroo gabowdoo gabax taagan baa nool haddaan calan yahow dushiyo daruuraha sare ku geyn wixii hore aan dayacay dibbaan ka hagaajino dunida adiga u sarrayn dastuurku ilaaliyo cidku damqanaysa iyo aqoon-yahan daacado raagii dumaraad lahayd waxaa diihaalka iyo dagaalada kugu wacan dugaaga shisheeya ee dalkay gobolgobol u jaren waxaad ku dawoobaysaa degmada xamar weyna iyo hargeysa dadka ku nool markay isku soo durkaan dantoodana ay gartaan dadkan diintiyo afkiyo dirkaba ka midaysane dareenkooduna israbo ruuxiisii kala durkiya miyaanu dulqaadanaa dadkaygu hadday fahmaan macdanta kugu duuganiyo khayraadka docdaada yaal darxumo kagamay tageen sareeyo calankayga oo sumadii waddankayga oo samada kii u ekaayo oo sanad guuro wanaagsan sareeyo dabcigaagii waxaad
baad curano rabbi cuudiyo sidii curabtiyo ubax udoon cafi doontaa calanyow buluuge xidigta caado sida curubtiyo ubax u diraa carfi doontaa cishaa imani calankoo idil calanyo lagaa ciseenin calanyo codkaagu shaqayn calanyo